waxaan oo wanaagsan dhammaan khiyaartana daawanaysa email kastoo joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a dagaalkii ugu xoogganaa abid ee ka dhaca geeska Afrika gaar ahaan xeebaha Soomaaliya iyo Somaliland oo hadda bilaabmaya waxaana hadda weerar xooggan soo qaadaya dowladda Turkiga iyo dowladda fadhiidka Soomaaliya oo iskaashanaya oo ku soo wajahan markaasi xalaaleystayna in ay weerar toosa ku soo qaadaan maamul goboleedka Puntland iyo sidoo kale xeebaha bari ee markaasi Jamhuuriyadda Somaliland ee xeebta Laasqoray dowladda fadhiidka Soomaaliya oo shalay toona soo saartay warbixin ama markaa bayaan ay ku xalaaleysanayso in ay weerar ku qaado Puntland iyadoo sheegtay markabka ay Puntland hayso in ay tahay fal badheedh oo waxay yiraahdeen burcadnimo ah iyo markaa burcad badeednimo ah oo ay Puntland ku kacday waxaana ay ku tilmaantay maamulka halka Puntland ka jira inay yihiin burcad badeed markaa halka ka talinaysa taasi oo tallaabo adag hadda la qaadi doono si markabkaasi loo soo furtabay yiraahdeen iyo dhinaca kale dagaalka hadda markaasi Puntland ku soo wajahan kaliya ma aha mid Puntland lagu soo weerarayo laakiinse waxa meesha ku dagaalamaya waa Turkiga iyo Imaaraadka oo dagaalkii ugu xooggan halkaasi uu ku dhex mari doono waxaana hadda jira isbahaysi ballaaran oo markaa ay ka tahay dowladda Turkiga Qatar iyo Djibouti kuwaasi oo hadda iska kaashanaya in Imaaraadka markaa xididada loo siibo oo laga saaro bay yiraahdeen gacanka cadmeed iyo sidoo kale bariga Afrika iyo dhulka xeebaha iyaga oo markaa hadda ka bilaabaya dhinaca iyo Puntland in ay markaa Imaaraadka ka saaraan ayay doonayaan dagaalkan loo qorsheeyay ayaa hadda waxa uu bilaabmayaa maalmahan soo socda waxaana hadda la sheegayaa in Imaaraadka iyo Puntland hadda ay u diyaar garoobeen sidii ay isku difaaci lahaayeen dhinaca kale weerarka hadda ay wadaan isbahaysigan xooggan ee markaasi Imaaraadka ka dhanka ahi waxa sidoo kale ay duulimaad ku yihiin xeebaha bari ee Somaliland gaar ahaan dekada Laasqoray oo markaasi halkaasi ay ku qabsanayaan iyo Sanaag bari oo ay doonayaan hadda markaasi in howlgalkii lagu qabsan lahaa ay sidoo kale ku lifaaqan tahay waxaana hadda dhaqdhaqaaq iyo duursamo laga dareemayaa Sanaag iyadoo oo huwantii ay hanqalka la soo baxday oo ay ku dhawaaqayaan in ilaa Ceerigaaba ay qabsanayaan oo hadda ay ku tookhayaan in ay weerar ku qaadi doonaan Ceerigaabo oo hawshoodii ay hadda waxay heshay markaasi ididiilo dhawaaqyadii markaasi ay ku faani jireen ama ay ku tooqi jireen oo jireen Ceerigaabaan ku duuleynaa ayaa hadda ay dib u soo celiyeen oo waxay ilaamiyeen weerar ka dhan ah Ceerigaabo inay fulinayaan iyadana muuqaal ban idinka haya waxa kale oo ku soo qaadanaynaa barnaamijka dagaalkan xeebaha markaasi lagu qabsanayo ee ay bilaabeen isbahaysigaasi aynu soo sheegnay ee Turkiga iyo markaa dowladda fadhiidka Soomaaliya Qatar iyo Djibouti xitaa ay la socoto ee Imaaraadka lagula dagaalamayo sidoo kale Somaliland ayaa iyadana loo soo tuunbaraacaya waxaana hadda ay Somaliland bilowday in ay kasii gaashaamato wafdiga ballaaran ee markaasi jooga Taiwan ee heshiiska weyn la galay ee markaasi ilaalinta xeebaha Jamhuuriyadda Somaliland oo hadda Taiwan oo ku qalabaysan qalabka casriga ilaalinta xeebaha ayaa markaasi waxa wafdigii hadda la sheegay inuu kulamo kale oo ballaaran ay markaasi la yeelanayaan mas'uuliyiinta kala duwan ee dalkaasi Taiwan iyo heshiisyo waaweyn oo kale oo hadda ay gelayaan wasaaradda arrimaha dibadda Taiwan ayaana hadda ku soo bandhigtay warbaahinteeda kala duwan iyo baraheeda bulshada sida diiran ee markaasi hadda loo soo dhaweynaya wafdigaasi oo 5 maalmood joogi doona dalkaasi Taiwan waxaana hadda la sheegay Somaliland inay bilowday olole xooggan oo ay ku difaacayso iyaduna xeebaheeda maadaama hadda la isku bareeray oo markaasi dagaal toos oo xeebaha lagu kala qabsanayo uu bilaabmay qodobada iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada
waa hagaag kuwaasi waxa weeyaan qaar ka mid a ciidamadii kooxihii huwanta ahaa oo hadda markaasi bootadoodii iyo hanjabaadihii lagu yaqaanay inay yidhaahdaan ceergaaban qabsanana dib u bilaabay waxaana hadda la sheegayaa in ay tani ka dambeysay dhaqdhaqaaqyo hadda ka socdo markaasi gobolka Sanaag oo ay markaa dhiirigelisay weerar ballaaran oo hadda ay qorsheeyeen markaasi in ay hirgeliyaan dowladda fadhiidka Soomaaliya oo sidoo kale la socdaan markaasi ciidamada Turkigu kuwaasi oo hadda weerarkaasi lagu qaadi doono xeebaha Puntland iyo xeebaha bari ee markaasi Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan Laas Qoray oo markaasi marmarsiyihii lagu qabsan lahaa ay hadda durtaba xalaaleysay dowladda fadhiidka ee Soomaaliya qoraal ay shalay toole soo saareen ayaa waxay sheegeen markaasi markabkii hubka iyo saanada military ka buuxday ee ay Puntland 19 bisha ay qabatay bishan aynu ku jirnay ee markaa July ayaa muddo 5 maalmood ku dhow kadib ayay markaa shalay hadashay dowladda fadhiidka Soomaaliya oo sheegtay hubkaasi in iyada uu socday oo markaa sidoo kale ciidamada ilaalada ammaanka yacni Turkiga ee Soomaaliya jooga ay lahaayeen ganacsato ayuu tala kalena u rarnaabay yiraahdeen oo markaa ganacsi ballaaran oo ganacsatada ay Soomaaliya ay leedahay ayaa markaa markabkaasi saarnaabay yiraahdeen taasi oo ay ognahay inay been tahay oo hub iyo saanad military ayaa ka buuxday markabkaasi يعني hubka saarnaan wax isqarinayay muuhayna kaarayaal iyo baybayeeyo taangiyo hubka noocyadiisa kala duwan ba ka buuxay marka goortii ganacsatada Soomaaliya ay hubka iyo saanada ka ganacsanayso yani raashin noqdeen waa tala la yaabay adoo si kasta ha ahaatee warqadaasi marka ay dowladda fadhiidka Soomaaliya soo saartay waxa sheegtay marka in burcad badeed ay noqotay maamulkii Puntland oo ay marka maraakiibtii ganacsatada iyo ciidamada Turkiga u rarnaa ay la degeen talaabo adag ba la qaadayaa bay yiraahdeen oo taasi oo marka ay sheegeen weerar ka dhana Puntland ay iclaamiyeen haddaba waxa jirta sidoo kale in Turkiguna hadda diyaar garoobay oo xogo badan oo la helayo ayaa sheegaya in markaasi ay jira weerar qorshe ballaaran oo marka hadda ay Turkiga iyo dowladda fadhiidka ee Soomaaliya ay wadaan sidoo kale waxa jirta يعني biyaha hoosteeda ayaa lagu dagaalamaya dagaalkan waxa uu ka dhaxeeya iyo ficiltankani waa Turkiga iyo Imaaraadka oo markaasi dekedahaasi hadda Boosaaso iyo dekedada Puntland waxa gacanta ku haya dhulka xeebta Imaaraadka sidoo kale waxa uu Turkigu ku eedeynayaa oo dagaalkuna ka soo markay dhiraandhirmay dhinaca Suudaan ayaa markaasi dowladda Suudaan iyaduna iska fadhiidka ayuu Turkigu taageeraa Imaaraadkuna kooxaha markaa jawaadka la oran jiray ama RSF-ta loo yaqaan ayuu taageeray dagaalka kula jira marka waxa weeyaan dhinaca Suudaan ba markaa dekedahaasi xeebaha Puntland howlgallada diyaaradaha drone-iska iyo diyaaradaha kale duqeynta ka geysta Suudaan ba halka Boosaaso lagaga qaaday bay yiraahdeen marka waxa la isla gartay oo marka xulafada oo Turkiga hogaaminaya ay hadda doonayaan inay Imaaraadka gabi ahaanba ka saaraan geeska Afrika oo ay Puntland hadda ay marka gabi ahaanba ka saaraan marka weerar ballaaran oo sidoo kale lagu eekaynayo Puntland iyo xeebaha bari ee Somaliland Laas Qoray lagu qabsanayo ayaa hadda bilaabmaya waxaana markaasi la sheegay weerarku inuu dhul iyo markaasi bad iyo dhinac walba noqon doono sidoo kalena kooxaha huwanta ah waxa ay hadda iyaguna ididiil ayaa gashay waxaan ku tooqayaan sida in muuqaalka ka arkaynay ay leeyihiin ceergaabayaan xitaa qabsanayna bay yiraahdeen haddaba si kasta ha ahaatee dagaalkan xeebaha lagu loolamayo oo sidoo kale Djibouti waxay ognahay madaxweyne Geelle waraysigu bixiyay muddo ilaa bil iyo badh ka hor waa kii Imaaraadka xoog u weeraray markii waftigii madaxweyne Cabdiraxmaan Cirar ka soo noqdeen Djibouti waa kii Geelle waraysi siiyay markaasi wargeyska Faransiiska ku hadla marka caalamiga sheegay marka Imaaraadka eedayn kulul dusha u saaray saxaafad badan ayuu la hadlay oo kala duwan Geelle waxaana uu yiri marka Imaaraad ayaa marka hadda xasilooni darro bariga Afrika geeska Afrika ku haya
waana la iska qaban doona waxyaabo noocaas ku hadlayay marka weerarkan mid soo qorshaysnaa buu ahaa markii horeba oo hadda waxa xulafo ah turkiga dowladda fadhiidka Soomaaliya Qatar iyo markaas sidoo kale Djibouti kullina waxay doonayaan olole ah in laga saaro imaaraadka marka geeska Afrika oo laga nadiifiyay bay yiraahdeen laakiin se imaaraadka laftarkiisa isaguna waa u diyaar garoobay iyo Puntlandba su'aashu waxa ay tahay markaasi ma suurtagal bay tahay marka weerarku soo qaaday Qatar iyo waxaan jeedaa turkiga iyo xulafadiisu ay ku qaadayaan Puntland iyo xeebaha bari ee Somaliland imaaraad ma ka saari karaan imaaraadku hadda iyaga Puntlandba waxa hadda la sheegay in difaac ay xidheen weerarkii ugu xooganaana iyo dagaalkii ugu qararay abid geeska Afrika ka dhacana halkaasi ayuu markaa ka dhici doonaa Somaliland iyada maxaa uga meel yaala maadaama ay socdo weeraro ballaaran oo xeebaha lagu kala qabsanayo waxa jirtaba ay markaa xukuumadda Somaliland bilowday in ay iyaduna difaac xidhato oo markaa xeebaheeda ay ilaashato iyadoo tiknoolajiyada casriga ahayd markaasi hadda lagu qalabayn doono heshiiska ballaaran ee markaa u dhaxeeya Somaliland iyo Taiwan ee waftiga ka socda Jamhuuriyadda Somaliland ee hadda ku sugan Taiwan maalintii labaad ayaa waxay la kulmeen mas'uuliyiinta kala duwan ee markaasi dalkaasi Taiwan wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ayaana sheegtay dultabayn heshiisyo waaweyn ay saxiixdeen Somaliland iyo Taiwan oo markaasi ah xagga coast guard-ka yani ilaalada xeebaha oo markaasi qayb weyn ka qaadan doonto Taiwan oo ay ognahay inay ka mid tahay wadamada caalamka ugu horeeya xagga technology-ga iyo markaas sidoo kale hubka casriga ah marka ciyaar maaha Somaliland hadda talaabadaasi ayay qaaday oo iyaduna xeebaheeda ay ku difaaci doonto laakiin talo bal isla gaari doona ayaa hadda su'aashu ay tahay maadaama weerarka Turkiga iyo dowladda fadhiidka iyo xulafadeedu ay ku soo qaadayaan xeebaha bariga Somaliland iyo Puntland ay laga yaabo in 24 saacadood ilaa 48 saacadood soo socda inuu dhaco barnaamijkii taasuu ku dhan yahay nabadgelyo